danteena ina midaysa dabuubteena xalkeenta dooddeena dhansacashada dagaalkeena jacayla danteena ina midaysa dabuub qurux ku dhiigla waxa uu ka mid yahay dadka badi ay ku xantaan Soomaalida in jacayl muddo dheer uu kala dhaxeeyay Maariish laakiin markaani waxa muuqaalkan ka soo muuqdeen Misbaax oo jacayl cusub dhawaan la sameeyay qurux ku dhiigle maseer weyn oo ka dhashay halkaas Maariish oo aad uga carootay muuqaalay isla soo duubeen iyo dalxiis isla tageen qurux ku dhiigle iyo sidoo kale Misbaax xogtan ayaan idinkula wadaagayaa bartamaha muuqaalkan ee warbixintan daawadayaal waxaan idinka codsanaynaa like iyo subscribe inaad noo saartaan oo saaxiibo kale iyo saaxiibada halkan ku xiran sida aad uga mid noqotaan xogaha iyo xaqiiqooyinkan halkan ugu baahino qurux ku dhiigle waxa uu ka mid yahay dadka caanka ka ah barta TikTok iyo sidoo kale arinta heesata maanta guud ahaan mareegta social media saacadihii ugu dambeeyay ayaa qurux ku dhiigle iyo Misbaax in jaceylkooda uu yahay mid baaxad weyn isla markaana uu marayo meel qurux badan arintan ayaa aad uga xanaajisay isla markaana muuqaalka isla soo duubeen Misbaax iyo qurux ku dhiigle Maariish ayaa mar qura aad uga carootay iyadoo heese kale oo calaacala ku soo qaaday barteeda TikTok waxayna ugu darnaanaysa qurux ku dhiigle oo jacayl muddo badan iyo sanado badan uu kala dhaxeeyay inkastoo muddooyinkii dambe lamaanayaashan dadku ay ugu magacdareen lamaanayaasha isku dhaca ee mararka qaar isku dhacayeen halka mararka qaarna ay saaxiibo noqdanayeen inkastoo ay noloshu tahay caqabad mararka qaarna ay leedahay noloshu wajiyo badan oo cadow ah iyo kuwo badan oo aad ku taageero qurux ku dhiigle hadda wuxuu mar kale kala soo muuqday muuqaal dalxiis ah oo wada dheer meel aad u qurux badan ay marayaan Misbaax tan ayaa noqotay fariin xanuun badan oo ku dhacday Maariish ayaa qudheeda ka soo jawaabtay iyadoo heese calaacal iska soo duubtay kuwaas oo intooda badnaa u badnaa karbaash ay ku karbaashaysa qurux ku dhiigle maadaama dhowr iyo 10 sano ay wada socdeen qurux ku dhiigle iyo Maariish kuwaas oo ka soo muuqan jireen dhanka social media muuqaalo kala duwan iska soo duubi jireen laakiin arintan 24 saac ee ugu dambeeyay heesato social media ayaa in qurux ku dhiigle iyo sidoo kale Maariish ee maanta labadooduba aad uga xumaadeen waxyaabaha qurux ku dhiigle uu sameeyay isla markaana ee gabadha lagu magacaabo Misbaax oo muddooyinkii dambe aad loogu xamanayay in labadan lamaane ay aad iskugu soo dhawaanayaan ayaa markaani waxa aad uga xumaatay Maariish inkastoo weli Maariish iyo qurux ku dhiigle ay saaxiibo yihiin haddana markaan Misbaax ayaa u muuqata gabar aad u jecel qurux ku dhiigle ayaa markaani wuxuu u taagan yahay laba weerar oo kaga imaanaysa Maariish oo ah saaxiibadiisii hore muddo badan ee nolosha wadaagayeen iyo Misbaax oo ku cusub noloshiisa mararka qaar ay aadaan banaanka hore ee dalxiiska halkaas ay ku soo qaataan waqti iyo jawi degan laakiin muuqaalka maanta 24 saac ee ugu dambeeyay social media heesta ayaa ah in Maariish ay aad uga carootay waxyaabaha ay sameynayeen qurux ku dhiigle iyo Misbaax kuwaas oo iridka hore ee magaalada banaankeeda dalxiis ku soo galeen isla markaana ku soo qaadanaya waqti nasiino arintan ayaa markaana waxay ka dhalatay caro kaga timid Maariish isla markaana waxaaba macquul ah in Maariish iyo qurux ku dhiigle sidaas isku waayaan halkaasna jaceylkooda dhaxalgal ay ka noqdaan Misbaax iyo qurux ku dhiigle